Hello everyone. Episode of the class English ka waxaynu baranaynaa future simple tense. Future simple tense form ka ama qaabka u samaysmo affirmative markuu yahay waa subject oo lagu daray will ama shall oo lagu daray v of verb u taagan. I will go to Thailand ayaan tagi doonaa. Negative marka laga yahay subject will ama shall plus not plus verb ayuu negative looga dhigaa. I will not go to Thailand. Interrogative markuu yahay weydiimo. Will you go to Thailand? Why? Will, shall plus subject iyo verb. Subject iyo verb xagga dambe maraya. Will you go to Thailand? Ma Thailand ayaad aadi doontaa? Usage isticmaalkayga siyaabo loo isticmaalo iyo waqtiga la isticmaalo. For actions decided at a moment of speech. Talaabooyinka la go'aamiyay waqtiga la hadlayo ma ficilka waqti la hadlayo. I have a toothache. waxaan leeyahay ilka xanuun. I will take a medicine. waxaan qaadan doonaa a medicine daawo. For unplanned future actions. talaabooyin aan qorshaysnayn mustaqbalka la qaadayo ma ficilo la samaynayo mustaqbal aan qorshaysnayn. Winter jilaalku will come soon wuu iman doonaa. si dhaqsa Winter will come soon. jilaalka ayaa dhawaan iman doona. For offering action. Asking for a request. For bixinta. Asking for a request. dalbashada cusub ballanqaad. Promising ballanqaad. waxaa loo isticmaalaa for offering bixinta. Asking for a request iyo weydiinta codsi. Promising ballanqaadka. Ordering amrida. Threatening iyo hanjabaad. tusaalena I am afraid we will get wet. I am afraid we will get wet. waxaan ka baqanayaa inaynu qoy doono. qoyayno. For waxaa kaloo loo isticmaalaa for preventable actions
in the future. tallaabooyin aan laga hortagi karin in the future. Summer will come soon. Summerku waa iman doonaa ama xagaag waa iman doonaa dhowaan. waxaa kaloo loo isticmaalayaa with conditional time parables of clauses. iyadoo la raacayo shuruudo ku xiran xaalad waqti iyo ujeedo. tusaale haddaynu soo qaadano when I arrive at home I will call you. markaan guriga imaado waan ku soo wici doonaa. for those predictions waxaa kaloo loo isticmaalaa for those predictions, assumptions, sureness, fears about future. oo kala ah hadaynu soo maydiyayno fikradaha for those predictions saadaalinta malaawaalka assumptions sureness hubinta fears habsida about future iyo future ku saabsan. tusaale haddaynu soo qaadano I promise waxaan ballan qaadayaa I will not tell cidna uma sheegi doono this anyone. I will not tell this secret salahan anyone cidna uma sheegi doono. okay time muujinta waqtiga waxaa ka mid a tomorrow beri, soon dhowaan, later goor dambe, next week usbuuc dambe, 2 weeks laba usbuuc, bil, next year sanadka dambe, later goor dambe.